السلام عليكم dhammaan asxaabta ku xiran Amjad Academy kusoo dhawaada cashirkeenii saddexaad ee price action. Labadeennii cashir ee hore waxaanu kusoo baranay waxyaabaha muhiimka u ah price action strategy. Haddana cashirkan waxaanu ku baran doonaa ama aan ku gudageli doonaa sida u shaqeysa istiraatiijiyadeena iyo shuruudaha ay leedahay insha Allah. haddii aan guda galno istiraatiijiyadeena ugu horeyso aan baranayno waxaan u naqaanaa ama waxaan u bixinay Z pattern ayaan u bixinay Z pattern waxaan ku qeexi karnaa waa continuation pattern waa pattern kaasoo ah continuation wuxuuna sameysmaa mar walbo aan aragno inuu suuqa sameeyay impulse waxaan u naqaanaa candles kuwaasoo leh momentum. Okay, haddaba Z pattern shuruudo ayay leedahay. shuruudaheeda haddii aanu barano shuruudeeda koowaad waxa waaye inaan helno counter candle ama counter candles. tusaale haddii aan soo qaadano jaartigan koowaad oo meesha inuu yaalo haddii aan tusaale ka dhigano waxaan u jeednaa qiimaha wuxuu ku jiray impulse then waxaa sameysmay ascending oo aan hore usoo baranay. This ascending wuxuu inoo qeexaya inay aad u badan tahay inuu jihada uptrendiga ah uu bedelmo ama uptrendiga uu dhamaado ama meeshii uu ku dhamaan lahaa inay tahay ayay inuu tilmaamaysay. Okay, haddaba markii qiimaha uu sameeyay impulse oo selleriska ay si fiican u kontroleen waxaanu rabnaa marka Z ama entry aan ka abuureyno shuruuda uu leeyahay kow waxa waaye in aanu helno candle kaasoo ah counter candle. counterna waxaan u naqaanaa candle kaasoo aanu ka hoos marin laawgii uu hooseeyay maadaama highgan uu halkaa yahay. This law candle aanan ka hoos marin na helno hal candle wuu noqon karaa wuuna ka badan karaa 2 3 wuu noqon karaa. Okay, tusaale haddaan kasoo qaadano haddii uu noqdo 2 candle haddii ay sidaas sameeyaan qaybtaas marka waxaa sameysmay marka 2 candle markay sameysmaan oo sidaas oo kale uu sameeyo haddana waxaan rabnaa shuruudeena labaad waa in haddana candladaas oo counterka ahaa oo kor u socday inuu sameysmo candle kaasoo aanu ka kormarin tusaale oo micnaha asigana counter kale counter with counter aan dhihi karnaa. marka tusaale haddii candle kale oo bartaas ku sameysmo this candle oo aanu ka hoos marin ayaa waxaan sameynaynaa marka aanu ka kormarin oo kale candlekaas hadduusan ka kormarin counter candleskii hore ayaa meeshaas ayaa waxay noqonaysaa highgan ayaa noqonaysaa kow. marka highgaas haddii uu sameysmo waxaanu sameysanaynaa marka inaan calaameeno ayaan sameynaynaa tusaale inaan dhahno meeshaas ayaa waxay tahay first high ama highgani koowaad uu noqonaa. Okay, haddana waxaanu rabnaa in qiimaha uu kasii kormaro meeshii uu kasoo naqday inuu kasii kormaro. marka haddii tusaale sidaa u jeedid haddana uu 2 candle ay kasii kormaraan ayaa waxaa sameysmaya marka waa highgani koowaad highgani labaad waaye kanna waa highgani koowaad soo marka waxaan haysanaa 2 high meeshaan waxaan ku haysanaa waa lawgani koowaad intana waxaan ku haysanaa waa lawgani labaad. marka Z waxay ka kooban tahay 2 highs ay ka kooban tahay ama 2 high ay ka kooban tahay. marka Z qaabkaasi ay u sameysmataa marka haddii aan aragno impulse then aan helno candle kuwaasoo trendy downka ahaa cagsi ku ah 2 candle 1 candle 3 candle waxay noqdaan then aanu helno candle kaasoo aan ka kormarin candledii counterka aan ka kormarin haddii qiimaha sell tahay ayaan ka hadlaynaa. markaas waxaa inoo sameysmaayo highgani koowaad then waxaanu sugaynaa in highgaas qiimaha uu ka kormaro si aan u helno high labaad. highgan labaad markuu sameysmo waxaa inoo sameysmaayo lawgeeni horeeto iyo law kale ayaa inoo sameysmaayo. markaas ayaa waxaa inoo sameysmay continuation pattern oo aan u naqaano Z. marka haddii laga kormaro highgani haddii laga kormaro qiimahana uu sameysmo tusaale
haddii qiimaha aan rabno inaan fursad sell ka abuurno waxaanu sugaynaa another counter candle ama retrace candle ama bearish candle ayaan sugaynaa. marka bearish candle hadduu samaysmo thenna meeshaas ayaa waxaanu ka abuuraynaa fursad sell ayaan ka abuuraynaa. marka sidaas ayaa fursadda sellka uga abuurnaa haddii joogno z button qaybta sellka haddii aan joogno. marka shuruudda koowaad waa in aanu helnaa impulse thenna aanu helnaa formation qaabkan z-ka u samaysan. this is sida u muuqdo waxaan u jeednaa inuu z yahay ama zigzag, qiimaha inuu impulse sameeyaa oo wax yar kor aadaa then wax yar oo soo noqdaa meeshii oo ka soo noqday qiimaha inuu ka kormaro thenna aan sugno inuu samaysmo bearish candle haddii aanu sell ka abuureyno oo qiimaha impulsiga oo ahaa impulse down ah. okay, kan marka waa tusaale oo qaybta sell markii la abuuraayo fursad sell ah markii aan abuureyno tusaale kamida waa. tusaalaheena labaad waa tusaalahan haddii aan soo qaadano haddii aan aragno suuq noocan ah oo qiimaha oo sidaan sameeyey waxaan u jeednaa inuu uptrend ku jiro. okay, marka qiimaha haddii oo impulse-na siiyey this impulse high-geena waa halka thisna waa lowgeeni waaye. okay, waxaan u jeednaa waxaanu z marka qaybteeda waxaan ka rabnaa qiimaha inuu wax yar hoos soo aado oo counter candles ay samaysmaan kandaladaasna aysan ka hoos marin kandaladaasna aysan ka kormarin high-geeni uu sareeyay aysan ka kormarin thenna aanu helno kandalo kale oo retrace sameeyo oo qiimaha kor aado si ay u abuuraan high kale si ay u abuuraan. marka this waa lowgeeni koowaad, kan waa low kale, two highs kalena waa kaasa. marka mar walba waxaan xisaabsanaynaa two high iyo two low ayaa xisaabsanaynaa. marka tusaale haddii aanu helno qiimihii inuu sameeyey wax yar oo kor aado then marka waxaanu sugaynaa mar walbo ama waxaanu calaamadeysanaynaa meesha oo qiimaha kasoo sameeyey retrace ama meesha oo kasoo noqday. haddii qiimaha oo meeshaas ka hoos maro ani bullish candle markii aan buy joogno waxaanu sugaynaa bullish candle ayaan sugaynaa. marka ani bullish candle ama candle oo hadba kalarka isticmaalaysid oo haddii tahay cagaar ama haddii tahay cadaan hadba kalarka isticmaalaysid ay ku xiran tahay. haddii aan helno bullish candle ama candle buy ah haddii aan helno qiimaha meeshaas ayaan fursad buy ah ka gelinaa maadaama aanu hore u haysan impulse. marka waxaa isweydiin mudan why aanu fursad sell ah ama tusaale why haddii qiimahan uu ka kormaro oo meeshaas tago isla markii aan fursad sell u gelinaa ama aan sell u dhahaynaa anigoo aanan fiirin candleka noociisa meesha la joogo anagoona fiirin. sababtu waxaa waaye waxaanu haysanaa impulse ayaan haysanaa. this impulse oo ka kooban kandalo kuwaasoo leh momentum fiican. waxaa shardi ah kandalada inay leeyihiin momentum fiican haddana aysan lahaynin kandaladaas spikes aysan lahayn. marka haddii aan sidaas aragno waxaanu ognahay in qiimaha ay aad u badan tahay inay controlaan this impulsigan qiimaha inay down ama salariska inay controlaan inay aad u badan tahay ayaan sii dareemaynaa. so marka z waxay u eg tahay flag ay u eg tahay laakiin flagga markii la isticmaalayo waxaa la fiiriyaa in flagga lasoo jebiyo in tusaale hadduu flag weyn yahay ama large flag hadduu yahay ama small flag hadduu yahay in 1 2 3 targets in la xisaabiyo. laakiin kan waxaanu xisaabinaynaa two high iyo two low iyo inaan laga hoos marin ama aan laga kor marin lowgeeni ama high-geeni inaan laga kor marin. marka qaababkan formationadan ayaa jiro labadan markii aan fursad sell abuureyno waxaanu ka rabnaa qaabkaas inuu qiimaha wax yar kor aado then inuu retrace sameeyo then meeshii oo retrace kasoo sameeyey inuu ka kormaro then aan sugno bearish candle. walcagsuna sidaas waaye. marka haddii aanu galno marka real chartigeena aanu galno marka haddii aan ku laabano stop losska aan isticmaaleyno waa hadda waxay ku xiran tahay lacagta nooceeda ayay ku xiran tahay laakiin stop losskeenu waxaa waaye 20 bibs ama 20 bib ugu badnaan inaad 20 bib ka dhigato. haddii backtestingka aad samaysid ay kuu soo baxdo inay 20 bib ay yar tahayna waad kasii badin kartaa. haddii ay kuu soo baxdo in 20 bib ka yar aad isticmaali kartid sida 15 bib oo kale aad isticmaali kartid.
hadba waxay ku xiran tahay backtesting aad samaysid mar walba waxaa muhiima istiraatiijiyad kasto inaad ku samaysid backtesting tusaale lacag kala duwan aad qaadatid danna aad backtesting badan aad samaysid si aad u aragtid natiijada soo baxday marka natiijada marka aad adiga aragtid ayaa inaad isticmaashid ku habboon tahay annaga waxaanu sameynaa backtesting aad u fara badan waxaanu ka samayn doonaa fiidiyoyaal lacaga badan anagoo backtesting ku sameynayno marka tusaale hadda aniga stop losska aan isticmaalo markii aan markii entryga uu yahay z waxaanu isticmaalaa 20 bib stop losskayga 20 bib oo noqdaa marka hadbana waxay ku xiran tahay personality-gaaga iyo sida hadba adiga aad u qaadanaysid stop loss marka stop losskeenu waa 20 bib fursadeena waxaanu sugnaa haddii aanu helno bearish candle markii aan fursad sal aan abuureyno tusaale oo real chartna waan soo qaadi doonaa okay mar walbo stop losskeenu waxaanu ka daba wadnaa hadba high-ga iyo low-ga ayaan ka daba wadnaa tusaale haddii la soo jebiyo low-gan haddii la soo jebiyo stop losskeenu waxaanu ku samayn doonaa inaan soo rarno hadbana waxaan fiirin doonaa counter candle-kii ugu dambeeyey ama candle-kii ugu dambeeyey oo trendiga cagsi ku ahaa mar walba fiirin doonaa marka haddii aan u imaano jaartigan sidaan u jeedno waxaanu aragnaa qiimaha wuxuu ku jiraa descending ayuu ku jiraa maadaama aan descending haysano waxay u badan tahay qiimaha inuu kor aado tusaale marka waa inaa mar walba aad samaysaa forecasting inaad samaysid lacagta inaad qabatid aad fiirisid intay u badan tahay marka tusaale hadda waxaan rabnaa inaan impulse aragno dan markaa impulse aragnana hazad batan oo sidaas oo kale aad ka sugno haddii ay dhici weyso si kalen inaan sii aan laasgareyn karno tusaale waxaa dhici karo qiimaha inuu inta ascending galo dan markuu ascending galo inuu qiimaha impulse sameeyo haddii impulseyaas aa aragnana inaan fursad salka awoodno marka inaad sii taxliilin kartid wejiyada dhici karo laakiin inaad hal weji dhahdid bybis aan ku fikiraa waxaa ka qurux badan in many ways ama wejiyo kala duwan aad ka fiirisid marka haddii aan helno impulse danna aanu zad ka helno waxaanu ka abuureynaa buy haddii sidaan oo kale ee samaysmatane waxaanu ka abuureynaa sal marka waxaan u deynaynaa suuqa iyo wuxuu sameeyo ayaan u deynaynaa okay marka wadnagasti maxaa dhacay okay hadda high-geena waa halkaa low-geena halkaas oo high waa la jebiyey soo marka waa new low-geena ugu dambeeyey waa halkaas high-geena ugu dambeeyna waa halkaas marka okay aanu sii wadno waxaan u jeednaa kandala oo waxaa socdo bearish ama qiimaha hoos ay u socdaa marka aanu aragno marka kan waa sii wadaynaa mar walbo waanu sii update gareynaynaa okay qiimaha waxaan u jeednaa wuu soo laabtay maadaama uu soo laabtay waxay u muuqdaa qiimaha inuu descending oo galay ayna u badan tahay inuu kor aadayo u muuqataa okay aanu wadnagas waxaan u jeednaa qiimaha inuu weli uusan na siinin impulse fiican marka mar walbo waxaanu rabnaa inaan helno impulse clear impulse clear waxaan u jeednaa kandalo isla socdo oo tusaale momentumkoodu leeyihiin marka momentum fiican leh haddana aysan lahayn kandaladaas spike ama fiiq spike haddii aan aragno waxay inoo tilmaamaysaa in momentumka la luusgareeyey buyers ama sellers hadba jihada ay tahayna ay la kulmeen pressure badan qiimahan ay u badan tahay inuu gali doono indecision ama ranging inuu qiimaha gali doono okay marka ilaa aanu ka helno impulse sax oo kandalo fiican kadibna aan zad ka sugno qiimahan waan isha ayaan ku haynaynaa waan sugaynaa laakiin mar walba qasab maaha inaad fursad ka abuurtid mar kasto maalin kasto isbuuc kasto inaad fursad ka abuurtid waxaa fiican inaan sugno ilaa aan ka helno wax clear marka haddii aan ka helno clear impulse ayaa waxaa laga yaabaa inaan fursadaas aan abuurno ee kofar gareyso ama aanu ka helno percentage fiican 5% 10% 8% hadba waxaanu ka helno ayaa inagu filan laakiin haddii aad isku daydid inaad suuqa qasabno haddii aan isku dayno waxaa dhici karto inaan marar badan luus gareyno marka losing oo adiga qalad oo tusaale oo keenay FOMO ama inaad ka cabsanaysid inuu fursad ku dhaafto waxaa ka qurux badan inaan qiimaha iska aan sugno ilaa uu fursad clear uu ka keeno okay aanu wadna marka
waxaan u jeednaa weli qiimaha highgeena iyo lowgeena ay ku jiraa. Okay, haddii aan update gareyn hadda marka highgeena waa lowgeena waa halkaas, highgeena waa meesha. hadda waxaan haysanaa impulse clear aan haysanaa oo qiimaha waxaanu haysanaa maadaama hadda sidaa u jeedno kandaladan aad ay u yaryaryihiin markii la fiirsho baadigooda. haddana waxaan u jeednaa inuu kandalkan keligiis inuu aad u kofargareeyey ama u liqay kandalo badan oo ka horeeyey. soo marka waxaanu sugaynaa qiimahan sidan oo sameeyey dis marka kandal waxaa sameysmay aanu ka kormarin. okay, marka kandalkaanu waa ka u baahneen oo counter candle ama retrace candle waaye. marka waxaan sugaynaa inuu sidaas noqdo, dan waxyar oo hoos maro, dan meeshaas ay noqoto meesha aanu ka abuurino fursadda buyga ah meeshaan ka abuurino. haddii ay dhici weyso waxaanu sugaynaa qiimaha inuu ascending galo, dan oo qiimaha sidaas usoo dhaco. marka mar walbo waxyaabaha dhici karo inaan kusii xisaabtano ayaa muhiim ah. okay, aanu wadno. okay, marka haddii aan fiirino hal mar si fiican aan dib ugu laabano kandalkan markii aan joogno, kandalkan markii aan saarno waxaan u jeednaa inuu ka kormaray micnaha. waxaanu aragnaa si fiican haddaa u fiirisid kandalkan haddii aan saarno calaamadda haygiisa ama meesha uu sareeyo, haygiisu waxaa waaye waa 68.78 waaye. hayga waxay ku qorantahay halkaas ayay kasoo muuqanaysaa haygiisa. marka haygeena ama kandalkaas meesha uu sareeyo oo tagay waa 68.78. okay, kandalkaanna meesha uu sareyso oo tagay waa 68.89. soo marka 4 dhururuq ayuu ka sareeyaa. haddii aan si fiican u weyneynana waxaanu aragnaa in kandalkan uu ka kormaray. soo marka maadaama kandalkan uu ka kormaray lowgeeni ayaa isbedelayo. kandalkan sax ma uusan ka kormarin, wuxuu ahaa retrace candle, laakiin kandalkan ayaa ka kormaray. maadaama ka kormaray marka ma ahan inaad dhahno kanu waxaa waaye qiimaha waa qaybtii koowaad hoos in la tago dan oo sidaas la sameeyo ma ahan. marba haddii laga kormaro waxay noqonaysaa inaan highgeena soo rarno. meesha waxay noqonaysaa highgeeni, kanna wuxuu noqonaa lowgeeni ayaa meesha noqonayso. marka waanu wadeynaa. marka waxaanu rajeynaynaa inaad qaybtaas la fahmay. waa muhiim in la fahmo, waayo kandalka inaad fiirisid markasto haddii la arki karin ee aad iskugu dhow yihiin qaybtaas inaad ka fiirisid highga iyo lowga in qaybtaas laga fiiriyo. okay, haddii aanu wadno waxaan u jeednaa hadda qiimaha impulse ayuu bilaabay. marka haddii markasta marka waxaa la rabaa in update gareysid, waa qiimahan waa lowgeena waa halkaas, highgeena waa halkaas. okay, hadda waxaanu haysanaa impulse fiican haysanaa. okay, waxaanu rabnay marka waa impulse noocan inaan helno. okay, impulse noocan haddaan helno waxaanu sugaynaa qiimaha inuu waxyar kor aado, waxyar oo soo noqdo, uu ka kormaro, danna meeshaas ay noqoto meesha fursadda salka aan ka abuureyno. okay, aanu fiirino marka waxa dhacay. okay, waxaanu haynaa hal kandal oo counter ah, kandal kale uu kasii kormaray. okay, meeshaan ayaan calaameysanaynaa. meeshaan markaa calaameysano marka hadda waxaan haysanaa waa highgeena, waxaanu haysanaa high 1 ayaan haysanaa, waxaanu rabnaa high 2 inuu sameysmo. hadda waxaan u jeednaa kandalkan inuu sidaan sameeyey, qaybtaan inay korsif aaday. hadda waa counter. soo haddii laga kormaro waxaa waaye fursad sal ayaa meesha ka abuureyna. okay, aanu aragno waxa dhaca. kandalkii wuu ka kormaray. soo marka haddana waxaa sameysmay bearish candle ayaa sameysmay. okay, waxaan haynaa 1 high, highgeena koowaad waa halkaa, highgeena labaad waa halkaas, 2 lowna waa haynaa. okay, this candle marka aanu fiirino saacadda uu sameysmay aan fiirino. okay, saacadda uu sameysmay waa 7 habeenimo waaye, ama waa xilligii oo suuqa uu yahay spread time. spread time haddii aadan aqoonin waa waqti oo suuqa oo spreadkiisu aad u weynaanayo. waqtigaasna wuu isbeddelaa, laakiin inta badan markii aan joogno Soomaaliya waa 6 saac ilaa 7 saac, 7 saac ilaa 8 saac. labadaas saacadood ayaa waxaa u naqaanaa spread time. marka maadaama uu kandalkan sameysmay saacadda 7 saac oo spread time-ka ah, waxaanu sugaynaa marka qaybtan waxaanu ka dhiganaynaa marka highgen halkaas ayuu naqanaa. marka waxaanu dhahaynaa this the high waa qaybtii koowaad, kandalkan wuu ka hoos maray. kandal kasta oo meeshaas ka kormaro ayaa waxaanu ka abuurinaa fursad sal ayaan kasoo abuurinaa.
marka qaybtan waxay noqonaysaa one high inuu qiimaha kasoo hoos maro then hadduu meesha ka kor maro inay noqoto meeshii fursadda selka aanu kasoo abuurin inay noqoto okay marka aanu sugno marka waxa dhaco okay waxaanu haynaa marka qiimaha sidaan u jeedno marka uu ka kor maray waxaanu ku xirnay bearish candle marka waa this the highgeena koowaad waxa lawgeena labadeena lawna waa labadaas highgeena saddexaad highgeena labaadna waa halkaas marka waxaanu haynaa two high iyo two low waa haynaa soo marka waa in meeshii aan ka abuureen fursadda spirit time laguma jiro oo waqti caadi ah weeyaan soo marka meeshaas ayay noqonaysaa meeshii fursadda selka aan ka abuureynay stop loss keenana waxaan ka dhiganaynaa 20 pips oo kale okay stop loss keena marka haddii aanu 20 pip ka dhignay aanu wadna marka wixii dhaco hadda marka waxaan ku jirnaa trade keeni koowaad anagoo galayna z entry waxaanu ka abuurnay fursad sell ayaan ka abuurnay stop loss keena waxaanu soo rari doonaa haddii lawgan la soo jebiyo haddii la kor maro oo qiimaha stop loss ku dhacane waxa waaye waxaanu isticmaalnay risk management oo mar walba waxaa muhiim in isticmaasid riskiga inuu noqdo 1% maximum 1% inuu noqdo marka inaanu qasaarno 1% ama inaan faa'iidno 7% 2 3 4 ilaa wixii aanu helno oo ilaahay inoo carfo okay aanu wadna marka waxa dhaco waxaan u jeednaa qiimihii si fiican u soo dhaqaaqay okay marka hadda waxaan u jeedaa qiimihii wuxuu jabiyay laawgii wuu jabiyay maadaama uu laawgii jabiyay aanu dib u naqano laawgeena wuu jabiyay soo marka waxaan raadinaynaa counter candle-kii ugu dambeeyay counter candle-kii ugu dambeeyay waa kan this counter candle-keena ugu dambeeyay waa soo marka stop loss keena wuxuu noqon doonaa halka ayaan dhiga doonaa stop loss keena okay stop loss keena koowaad aan soo rarnay anagoo reduce risk ku sameynay halkaas ayuu yaalaa soo marka waxaan dhihi karnaa waa break even inkastoo still oo wax yar uu yahay oo aan 3 pips camal uu yahay laakiin still waxaan ku jirnaa risk ayaan ku jirnaa okay aanu aragna marka waxa dhaca waxaa sameysmay counter candlekaas kalena waa ka hoos maray maadaama counter candle oo sameysmay candleki kalena oo ka hoos maray soo marka lawgeena waa inaan soo rarnaa highgeena waa halkaas ayuu noqonaa okay highgeena waa halkaa haddii aan high iyo low u sameysano si aan iskugu khaldin okay marka highgeena waa halkaa lawgeena waa halkaas soo marka stop loss keena waxaanu keenaynaa 2 pip ka kor highgeena ugu dambeeyay soo marka 2 pip ayaan ka kor marinay stop loss keena halkaas ayuu yaalaa okay hadda marka waxaanu nahay free risk waxaanu haysanaa percentage oo free ah okay some profit ayaan haysanaa xitaa hadduu soo laabto profit ayaan haysanaa okay marka waxaanu sameynaynaa trade kale ama trade labaad ayaan gelaynaa haddii aanu aragno in balsi fiican uu sameeyo z hadduu sameeyo waxaa jiro qayb kale aanu ka galno fursad taasoo u naqaana bullet iyada oo taasoo ah high probability ama risk entry ah iyadana ciwaanada kale ayaan ku baran doonaa soo marka hadda kaliya waxaanu target saareynaa qaybta oo z ah bulletka ma isticmaaleyno soo marka haddii bullet entry ay imaado waa iska indhatireenaa kaliya waxaanu fiirinaynaa z entry ayaan sameynaynaa okay aanu wadno okay weli marka waxaanu haynaa qiimihii okay hadda marka maadaama uu soo jabiyay waa soo wadeynaa highgeena marka wuxuu noqonaa meeshii ugu dambeysay ayuu noqonaa soo marka waanu soo wadeynaa highgeena stop loss keena waa ka dab wadeynaa okay stop loss keena xoogaa ayaan kasoo dawadnay meeshaas ayuu yaalaa okay aan arag marka hadda maadaama haysano in balse fiican haddii aan helno z entry oo sidaas oo kale fursad sal ayaan ka abuurinaa maadaama hadda kaliya aan hal istiraatiijiyad qaybta kaliya aan baranayno qaybta kale haddii aanu aragno waa iska indhatireynaa haddii z uu sameeyo qiimaha meeshaas ayay noqonaysaa meesha fursadda aanu ka abuurayno fursad labaad mar haddii marka maadaama free risk aan ahnay fursad labaad waanu abuuri karnaa haddii uu dhaqaaqane kii horena faa'iido noqonaya kana faa'iido noqonaya haddii oonu u noqdane kana profit ka haysanay marka soo wax riski ma geli doono marka aan aragno waxa dhaco okay candlekaas wuxuu sameeyay counter candle ayuu noqday
haddii aan qaybta bullet isticmaali lahaynay intrigeena halka ayuu ahaan lahaa soo marka trade-kaasu wuxuu noqon lahaa trade furan laakiin hadda ma isticmaalano okay aanu aragna waxa dhaca haddii la jabiyo okay waxaanu aragnay in meesha la jabiyey soo maadaama la soo jabiyey waanu soo wadeynaa marka laawigeena meeshaas ayuu noqonaa stop loss-keena waa kasoo dawadeynaa soo marka hadda stop loss-keena waa ka daba dhaweynay waxaanu haynaa 2% profit ayaan haynaa okay aanu aragna waxa dhaca soo marka waxaan u jeednaa qiimaha inuu ku jiro some descending oo qiimaha impulse markuu sameeyey in la celiyey impulse markuu sameeyey la celiyey soo marka waa macquul inuu sii socon waayo oo qiimaha naga saaro laakiin anaga waa arkaynaa waxa dhaco waayo waxaa marmar dhacdo qiimaha ina descending oo galo danna uu sameeyo impulse fiican oo hoos ah inuu qiimaha sameeyo ayaa dhacdo marka aan waqti siino aan aragno waxa dhaca insha Allah okay waxaan u jeednaa inuu sameeyay nice impulse oo si fiican u dhacay soo marka haddii oo inaan siiyo Z formation waxaanu ka galeynaa fursad labaad ayaan ka galeynaa okay ilaa hadda marka kandaladan sida u jeedid kandal kasto kandalkan kan mid kasta midka kale uu ka hooseeyaa maadaama mid kasta midka kale uu ka hoos marayo this waa trend ama waa impulsive way soo marka haddii aan helno candle counter ah oo kandaladan aanu ka hoos marin markaasna la jabiyo lawgeena ayaanu qiimaha soo rareynaa laakiin hadda stop loss-keena meeshaas ayuu aalaa waayo waxaa dhici karto in qiimaha uu galo this ranging-kaas markuu in muddaa ku jirana dan inuu dhaco soo marka haddii aan dhaho stop loss-kii aan zaad usoo dhaweeyo aan meeshaas soo dhigo waxaa laga yaabaa marka in laga saaro danna la dhaco marka annaga marka mar walba waxaanu la soconaynaa trendiga ayaan la soconaynaa maadaama marka high-ga uu sareeyo trendiga uu meeshaas yahay maadaama counter candles aan ku helnay meesha ayay noqonaysaa meesha aan ka saareyno waa halkaa hadda sorry maadaama candlekan uu meeshaas ka hoos maray halkaas ayay noqonaysaa waxyar aanu dib u celino okay marka haddii aan ka dawadno marka aan aragno waxa dhaco ilaa hadda marka waxaan haynaa counter candles ma hayno candlekan ayaa candle kasta candle kale uu kasii hoos maraa sidaan u jeedno marka ilaa aan ka helno counter candle danna meesha laga jabiyo okay this marka candlekan oo kan meeshaas ah ayaa wuxuu noqday counter candle waana la jabiyey soo marka maadaama sidaas dhacday stop loss-keenu waa soo dhaweynaynaa meeshaas ayay imaanaysaa marka hadda waxaan haysanaa 3.5% ayaan haysanaa oo free risk ah okay weli qiimihii waa socdaa sidaan u jeedno laakiin fursad kale ma una siinin fursad kale ma aan ka abuurin marka aan wadno aan aragno ilaa uu inaga saar marka mar walba qiimaha waanu ka dawadeynaa targetkeena ama take profit-keenuna waxa waaye waa unlimit ama waa open mar walbana TB-geenu waa stop loss-keena meesha aanu ka dawadno waayo waxaa macquula qiimahan inuu 1 month trendiga oo haysta ayaa macquula 1 monthgaas marka trendiga hadduu haysto waxaa laga yaabaa inaad 20% aad ka heshid sometimes way dhici kartaa marka haddii aan dhahno qiimaha maadaama aan ka heysano some profit aan iska xirno waxaa ka qurux badan inaan xushmeyno ruulkeena ama xeerka inoo degsan iyo istiraatiijiyadeena xeerkeeda inaan xushmeyno soo marka mar walba kaliya waxaanu ka dawadeynaa laawi iyo high ayaan ka dawadeynaa okay aanu aragna marka okay qiimaha wuu jabiyey oo candlekaas ayaa jabiyey soo maadaama candlekaas uu jabiyey new low new high stop loss-keena waanu soo wadeynaa wuxuu aali doonaa meeshaas oo kale marka waxaanu hadda haynaa 4.2% ayaan haynaa okay aanu wadna marka aanu aragna waxa dhaco okay qiimaha meeshaas ayuu inooga saaray waxaan u jeednaa meesha ayuu inooga saaray soo marka trade-kan waxaan ka sameynay 4.2% ayaan ka sameynay inkastoo hal trade kaliya oo naqday aanu ka helin fursado kale laakiin kaliya waxay ahayd tusaale aanu ku muujinaynay Z entry ama Z button aan ku muujinaynay soo marka kan waa fursad sell ah haddii ay noqoto buyna waxay noqonaysaa si lamida kan cagsigiisa ay noqonaysaa soo marka waxaan rajaynayaa inaa la fahmay qaybteeni aan maanta ku baranay istiraatiijiyadeena baartigeeda koowaad kaasoo ah Z ama continuation button oo leh too high iyo too low soo marka mar walba waxaa muhiim ah inaad samaysid backtesting aad isku daydid
inaad lacagta aad qabatid kadibna one year oo kale aad dib u laabatid meeshana aad kasoo bilowdid backtesting aad isku daydid maalinkii 2 bil 3 bil hadba wixii aad awoodid inaad samaysid then aad aragtid si ay gacantaada ula qabsato marka mar haddii aad wax badan backtesting samaysid waxaa la qabsanaya gacantaada wax aad ayaana waxaa noqonaysaa qof u firfircoon danna waxaa noqonaysaa inaad wax badan ka qabatid meeshaas ay noqoto inaad istiraatiijiyadaas aad kusoo dari kartid trade plankaaga ama aad isticmaali kartid marka waxaan rajeynayaa in la fahmay dhammaanteen waxaa inoo rajeynayaa guul intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu